مد المبعوث فينا رحمة البرايا مثل غيث هدلا فارتووا من ماء هذه المصطفى وسقاهم بعد نهل على صل يا ربي على خير الورى maantay waxay inoo tahay maalin qaali ah waxay inoo tahay maalin weyn waa maalin aannu muujinayno farxadda aannu ku faraxsannahay nebigeenna moxameda sala allahu calayhi wasallam dhalashadiisii waa maalin aannu ku difaacayno aflagaadadii gaalka la odhan jiray makron magiciisu waa makron laakiin waa makruuh xaqiiqada gaal makruuh oo la kahday wey isaga makrona la yidhaha laakiin waa makruuh cinda alcaalami biasri caalamkaoo dhan ayaa makruuhu ku yahay marka sidaas awgeed labadaa munaasabo ayaannu meeshan aan ugu kulannay ixtifaalka mawlidka nebiga sala allahu calayhi wasallam aannu weynaynayno iyo difaaca nebiga sala allahu wasallam wabaaraka calayhi aannu ka difaacayno dadka mujrimiinta ah ee shayaadiinta ah ee isku dayaya nebiga sala allahu wasallam wabaaraka calayhi inay aflagaadeeyaan waxaana sharaf inoo weyn inoo ah sheekheenna faadilka ah ashaykh alcallaama sheekh cismaan xidig ixtifaal uu qabtay inaannu ka soo qayb galno sharaf weyn ayay inoo tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala juhuudda sheekha dalka iyo diinta iyo ummadda uu ugu jiro ilaahay ha ku guureeyo cumrigiisana allaha noo dheereeyo caafimaadkiisana allaha noo daa'imiyo sidaas awgeed dadka muslimiinta ah ee ixtifaalkan ka soo qayb galay dhammaantood waannu ugu mahad celinaynaa waxaannu leennahay wada difaaca nebiga sala allahu wasallam wabaaraka calayhi iyo majaalistan aad ku muujinaysaan maxabbada nebiga sala allahu wasallam wabaaraka calayhi sidaas awgeed munaasabadani munaasabaadka kale waxay uga duwan tahay fardahan waxaannu ku xasuusanaynaa nebigeenna sala allahu wasallam wabaaraka calayhi waa aahaartii uu ku kor yeelay diinteenna islaamka ah waa raadadkii nebigeennu sala allahu wasallam wabaaraka calayhi dagaalkii beder iyo dagaalkii uxud iyo dagaalkii ghaswatu bani qaynuqaac iyo ghaswatulaxsaab duulaamadii faraha badnaa oo nebigu sala allahu wasallam wabaaraka calayhi caalamka uu diinta uu ku gaarsiiyey ayay xasuus inoo tahay maadaama ghasawaadka aannu ka qayb gelin inaannu xasuusanno fardihii nebigu sala allahu wasallam wabaaraka calayhi uu u dagaalami jiray inaannu dadka muslimiinta aannu dib ugu celinno xasuustoodii taariikhdii iyo halgankii nebiga sala allahu wasallam wabaaraka calayhi uu ku xasuustay fardahana si gaaruu nebigu u ammaanay sala allahu calayhi wasallam alkhayl macquudun fii nawaasiiha alkhayr ayuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasallam aadna wuu u jeclaa fardaha nebigu sala allahu calayhi wasallama waxaa khayr ayaa lagu guntay oo lagu xidhay fardaha ayuu ku tilmaamay nebigeenna moxameda salawaatullaahi wa askaa tasliimaatihi calayhi waxaannu rajaynaynaa dhammaanteen in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa maxabbada nebigeenna uu nagu nooleeyo ilaahay uu nagu dilo caalamulislaami oo dhanna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa diinta nebigeenna sala allahu calayh wasallam iyo maxabbadiisa allaha ku kor yeelo gaalka nebiga sala allahu calayhi wasallam aflagaadeeyana waxaannu leennahay khadalahu allaahu wa akhzaah khadalahu allaahu wa akhzaah saqadat faransa saqadat faransa saqadat faransa saqadat faransa akhza allaahu makron akhza allaahu makron wa adallahu fi الدنيا والآخرة وجعله الله عبرة للمعتبرين اللهم أرنا في مكرون عبرة يعتبر بها المعتبرون اللهم أرنا في مكرون يوما أسودا يكون عبرة لكل فاجر وفاسق وكافر يا رب العزة والجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر منتجي من كوربي أو شفا جسما عليلا نعيلا فدعا للخلق للدين بلا كسل عجزين أخي ولا مال لا صل يا